Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa daahfuray shirka labaad ee siyaasadda dhaqaalaha qaranka waxaana shirka looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin iskaashiga xiriirka dhaqaale ee dalalka deriska daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qodobo kale waxaana shirkan ahaa kii labaad ee guddiga dhaqaalaha qaranka shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya wasiirro ka socday dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda Soomaaliya xildhibaano gudoomiyaha bangiga dhexe hanti dhowraha qaranka iyo xubno ka socday dalalka uu xiriirka kala dhaxeeyo Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo shirkan daahfuray ayaa ka hadlay muhiimadda uu shirkan u leeyahay shacabka iyo dowladda isaga oo sheegay in shirkan uu leeyahay ahmiyad gaar ah waa ku faraxsanahay run ahaantii waana u hambalyeynaya golaha dhaqaalaha qaranka in aynu isugu nimaadno shirkii labaad lagaga hadlayo dib u habeynta iyo galeelidda dhaqaalaha iyo fikir iyo aqoon goluhu uu nagu soo kordhinayo cilmi baadhis weydiinay iyo dooda aynu furi doono lagaga hadli doono maxaa sal u ah dhaqaalaheena qaranka maxaa ay tahay in aynu qabanno waxaan doonayaa inaan ku celiyo halku-dheg maalin hore shirkeennii hore cilmi baadhiskii ay sameeyeen goluhu ka mid ahaa oo aan ama ibnu Sina ama ibnu Khalduun baa lahaa baan filayaa oo kaga hadlayay amni ma jiro haddaan dowladnimo jirto haddaan amni jirin amni ma jiro haddaan ciidankii amnigaa sugi lahaa jirin ciidan ma jiro haddaan dhaqaale jirin dhaqaale ma jiro haddaan jirin horumarkana inoo horseedi karaa inaynu gaadhno ilaahay idankiisa taas wadadii saxda ahayd baynu gacanta ku haynaa ilaa 2000 Soomaaliya waxbaa u soo kordhayay dowlad kastoo timaada iyo maamulka soo yimaada meel buu soo gaarsiinayay 2 sanadood iyo barkii maanta ay jirtay dowladdeena 12 sanadood waxaynu qabatanay 10 laabtood iyo 100 laabtood waa ay qabatay haddii aynu maskaxda tuujino oo isku darno fikirka ilaa maanta waxaan aaminsanahay xuluul midho dhal ah insha Allah inay inooga soo bixi doonaan shirkan waa mahadsantihiin dhammaantiin shirkuna si rasmi ah buu noogu furan yahay xubnihii kala matalayay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee shirka ka qayb galay ayaa dood waqti dheer qaadatay ka yeeshay shirka looga hadlayay siyaasadda dhaqaalaha qaranka dhageysi bulsho intaysan baarlamaanka la iman oo dhaqaaluhu waa xasaasi oo ogtiin dhaqaaluhu waa xasaasi oo baadiyo ka hadlay walaalkeed waxa laynagu haystaa waa wadankan geeska Afrika ee xagna uu ka saaran yahay Hindiya xagna uu ka saaran yahay badda cas oo labada dawlad oo labada wadan aynu u dhaxayno qorshe ma idin qortay yahay ah inaad samaysaan dhageysi bulsho dhaqaalaha wadankan waa barwaaqo sooran laabayna san u bilaabayna xagan ka bilaabayna aniga waxa ila saamaxay waxaan ka hadlayaa hal qodob oo muhiim ka hadlaya environment-gaas in la create gareeyo in la abuuro xaaladii iskaashiga dhaqaalaha oo u abuurma lahaa maxaa jira fikirka ah African Union ka iyo kullu waxay ku dhisan ummadaha sababta Afrika inay iskaalmaysato inay midowdo inay dhaqaalaha ka baxdo faqriga ka baxdo sida ummadaha kale oo uga baxeen hadana iskaashana kuma gudbo karna arrinta laakiin hadana sida waxay yihiin mahad waayo regulatory framework mala dawladda regulation iyada laga rabay inay noqoto ayada iska tabariyay waxaa la rabaa marka horta halka in la ataago number 1 number 2 dowladdu male policies export promotion program ma aha waagi dowladdu jirtay ama waxbaan dhoofin qudaar baan waxaan u dhoofin jiray Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Sacuudi halkii la yaqaan inta soo furaya inta markaad bangiga dhexe ku soo gudbid waxa weeye saafkan iyo lacagta suuqa shirkan oo ahaa mid waqti dheer qaatay ayaa ugu dambeyntii Dr. Cali Ciise Cabdi oo ah gudoomiyaha guddiga waxa uu muhiimadda shirkan uga warbixiyay warbaahinta waxa ahmiyadda ugu weyn ee ay tahay waxa weeye wada tashi in laga galo Soomaalida waxa dhaqaalaha maamulkeeda ragaadiyay waxa weeye warnayna lama tashan warlayma weydiin goobta ma joogin marka nidaamkan hadda National Economic Council guddiga dhaqaalaha qaranku ay ku dhaqmaysaa waxa weeye war waxaan ummadda wada leh dowlad dhexe male dowlad gobol male private sector male chamber male aan gundaha iska taagno mashaqooyinkeena hor yaalla iyo sidii looga bixi lahaa aan u dhammaano marka waan u sheegay dadka markaan shirka furahaynay waxaan idhi anagu inaan lecture bixino waana niman meesha laakiin dood wadaagno dooda la wadaagayana inay ku salaysan tahay cid
fekerka keligeed quman lihi ma jirto fekerku wuxuu macno yeeshaa marka hareeraha la iska taago waxgaradku ninkii wax ku biirin karaana ku biiriyo cabdilaahi maxamed cumar daacad shabeelle TV magaalada muqdisho